aad horteedii salaamaya waxaana aad farxad ii ah maanta in inta soo gabdhooda qurux badan ay hor fadhiyaan ay farsamada gacanta ay barteen kana qalin jibiyeen kuna shaqaystaan gabdhaha la midka ahna ay ku dhiirigelinayaan aad baan ugu faraxsanahay tan labaad waxaan salaamayaa soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha bulshada gudoomiye Basma waxaan sidoo kale salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka Banaadir Jawaahir waan salaamay waxaan aad uga mahadcelinayaa gudoomiyaha Hayla Bariise Technical Development Center Badri iyo Cabdiraxiin oo soo dhaweeyay aad baan idin salaamayaa anigu waxaan maanta leeyahay qoraynayno inaan ka hadlo dhanka hal abuurka ah yani entrepreneurship iyo dumarka iyo haweenka waxaan doonayaa marka hore maxaa la yiraahdaa hal abuurka qofka ganacsi sameynaya oo raadinaya inuu wax ka faa'iido laakiin risk qaadanaya yani wax la hubo inuu wax ka helayo ma ahan mar walba yani qofkaas dadka kale waxa uu dheeriyahay sababtoo ah dad badan oo anagu aan ka midnahay dad waxa jira oo u bartay mushaarkana markaad baratid waad ka baqaysaa inaad hal abuurnimo aad ku dhiiratid lan kan waad hubtaa bil walbaad helaysid maanta waxaan rabaa xogaa yar inaan taabto dumarka Soomaaliyeed ma hadda ugu horeysa hal abuurnimo maya waligood bay ku jireen maxaa la yiraahdaa kadib marka waxaan doonayaa kadib burburkii dalka qurbaha wixii tagay iyo wixii dalka joogayba dumarka ayaa u badnaa waxa dhaqaalaha gacanta ku hayay waxay galeen haweenka way ishabeeyeen hagbaday galeen ama maxaa la yiraahdaa ganacsi bay ku sameysteen qurbaha dalka gudihiisa ay ku sameysteen way iskaashadeen way isgacan siiyeen nasiib darro caruur fara badan waxa ku dhacday aaba la'aan ama hooyo la'aan oo rajo iyo agoonnimo noqdeen hooyada dhexdeeda u xiratay caruurteeda waxay ku korisay oo iyagoo agoon ah bay korsatay oo iskuulaadka laga saaray marka hadaysan iibin lahayn shaaha hadaysan dukaanka ay furan lahayn hadaysan gabadha qurbaha joogta dhoofi lahayn ay alaabta ka keeni lahayn qurba joogtadaysan ka iibin lahayn waxaynu xiranno ilaa dhulka gaalada markaad joogtid ma helaysid dharkaan oo xijaabyada iyo dharka asturan aysan gabadha Soomaaliyeed aysan ku dhiiran lahayn maanta lama arkeen wax badan haddana saasay tahay aynu oran karno way waxbay qabsadeen waxba wali naga maqan wali wax weyn baa naga maqan sababtoo waxaynu ognahay ragga Soomaaliyeed heerkay gaareen inaynu gaarno maxay noo diiday waxaynu ognahay ganacsiga qaarkiis inaysan dumarka gali karin ragga inooga horeeyaan ay awood ku leeyihiin ay ka mid tahay waxa loo yaqaan general trading macnaha raashinka la keeno ama la iibiyo oo wadanka la keeno rag baa u ah waxa ayaan darro ah gabadh haday la timaado fikir wanaagsan aysan helaynin rag ku maalgeliya ragga way ismaalgeliyaan wayna naga dhaqaale badan yihiin laakiin gabdhaha ma maalgeliyaan iyadoo xataa la timid afkaar wanaagsan oo lacag lagu sameyn karo laakiin ninka kale nin ahaan xataa hadaysan aysan wanaagsaneyn ama riskigu badan yahay ragga way ku dhiiranayaan inay maalgeliyaan marka maxaana laga rabaa marka maanta hadaynu dumarka haweenka Soomaaliyeed nahay inaynu raadino habkii aynu u abuuri lahayn aan ka gudbin lahayn kaliya shaaha la iibinayo iyo khudradda suuqa lagu iibinayo iyo hilibka la iibinayo iyo buqaadaraadkaas oo iyadoo irsaaqadeeda ay kala soo baxayso waxa u badan dumarka laakiin ma isweydiisan sababta ragga waxay yiraahdeen wadaadaan wadanahay ma iibinayno laakiin hooyada ilmaheeda wayna cunto miiska u saartaa marka daruufaha ku kalifay inay iibiyaan laakiin maanta maxaa la rabaa waxa la rabaa inaynu habayno aynu codkeena oo mid ah dumar ahaan aynu maxaa la yiraahdaa banuugta iyo dawladda iyo maxaa la yiraahdaa ganacsatada aynu u gudbino aynu niraahno waxaan u baahanahay anagaba in la maalgeliyo in la garab qabto ayaan u baahanahay oo mashruuciyo iyo afkaar fiican aynu la nimaano sababtoo ah waa laazim qayb libaax baynu ku nahay waxa la yiraahdaa dhalinyaradu waa 75 laakiin ogaada 60 ku dhawaad ka badan ba haweenka Soomaaliyeed weeye populationka Soomaaliyeed in sheegay majority baynu ka nahay marka waxaynu u baahanahay in dhaqaalaha hor taagan inaynu anagu iskaashano hagbadii la sii balaariyo
maxaynu bunuug lacagaha anagaa dirna telecomka anagaa isticmaalna shirkadahoodana markaa tagtaan haweenka ma shaqeeyaan maxaa la yiraahdaa nama taageeraan maxay ku dhacday marka waa inaynu la xisaabtanaa la xisaabtankana ceeb ma ahan macaamiishaadaanu nahay waxbaana ka soo kobcinay shirkadaada wax dib inoo geliya gabdhahaasaanu rabnaa inaynu tababarno lacag inoo geliya shirkadaha dhismaha ha inoo geliyaan yani taasaa loo baahayaa maxaa biri marka soo baxaya ana gabdhaha la hadlaya marka yaryarka waxaan rabaa inaan idiin sheego dhagaana si fiican u furo yaan la arkin dhibaatooyinka hadda taagan Soomaaliya waa dhul qani ah mustaqbal fog oo dheer baynu leenahay dhulkeena wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso ma waxaynu rabnaa shirkada ajnabi inta noo yimaadaan dalkeena noo dhisno maya marka ku dhiirada waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arko inaad dhismaha aad barateen farsamada aad barateen farsamadana dhulkeenu wax ku soo baranay ama ku soo daalnay dadka farsamo yaqaanka ah ayaa ugu lacag badan waxay ka lacag badan yihiin agaasimaha dawladda meel u fadhiya waxa ka lacag badan ninka korontada electricianka ka lacag badan ama ninka alxama ama gabadha alxanta ayaa ka lacag badan marka farsamada waa wax aad u wanaagsan waxaynu idin leenahay waan aad baan ugu faraxsanahay anigu dhismaan ku jira oo waxaan ka soo shaqeeyay dhismaha Afrikada kale laakiin inaan arko gabdho saa wax u bartay dhulkayga aad baan ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaya waxaan leeyahay hal qodob kaliya ku daraya intaan ka bixin maanta tourkana loo sameeyay waxa qalab yaala iyo cilmiga la idin barayo waxa weeye international level kama hooseysaan maanta standardska iyo normska Europe iyo Mareykan iyo adduunka horumaray la idin sheegayo ayaad wax ku barataan qalabkaas aad ku barataan marka aad baan uga mahadcelinayaa aad baan uga mahadcelinayaa Badr ya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته